السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أيان إذن سلامي شعب كيجا كنا درك نروي سيد أكسونتين سنة كان إن شاء الله تعالى 16 سبتمبر دورشو أيان نقصو فودله دورشة أصلا أنا رمتي وبهنا إن الآن وفا إذا سنو بعدين تنوارنتي وح آدي مهم ويو هلو ذي عبشو مكبحي كرنو ومهم مرك إن أدعد كاجا أدودي بتا إن ضد أصل هاي أما حزبية هاي حزبية أصل هاي إن أيهين حزبيو إن أدسكو أكو تغيرتيد فكرة هذا رمتي وقارك marka mid ugu horeyso waa horta wayna ogaataa 169 xildhibaan ayaa baarlamaanka Norway fadhiya taa waa muhiim oo laga soo doorto 19 degmooyin taa marka aad ogtahay haddana waxa muhiim ah oo qodob muhiim ah aan runtii raba in aan maanta ku baraarujiyo waalidiinta Soomaaliyeed in ay ogsoonaadaan haddii aad leedahay ilmo oo 17 sano maanta jira hase yeeshee buuxinaya 18 ilaa dabayaaqada sanadkan ilaa 31 December 2021 waxaad ogaataa in ay iyagana coday karaan isla sanadkan haddii tusaale ahaan oo kale 14 September ay buuxiyaan 18 jir 13 September doorashada dhacayso ogsoonow in ay ilmahaas awood u leeyihiin in ay codeeyaan doorashada sanadkan laakiin waa muhiim in aad ogaataa waa in aad baasaboorka Norwegiga haysatid waxa codeey kara dadka baasaboorka dhalashada Norway haysto taa waa muhiim dad badan ayaa marka wax isku qaldaan in Norway ay tahay wadan hal xisbi kaliya maamuli kara taana runtii waa qalad waxaad ogtiin hadda xisbiga hadda xisbiyada hadda fadhiya Norway ama oo baarlamaanka Norway fadhiya maanta maamul dalka waa Høyre KrF Kristelig Folkeparti waa Venstre iyo FRP oo ka baxday runtii baarlamaanka ayaa ku heshiiyay in ay markaas isku tagaan sida marka maanta si u maamulaan systemka maanta jira saasoo kale ay noqonaysaana kuwa imaan doono marka waxa laga wadaa haddii tusaale ahaan adiga aad u codeynaysid xisbi waa inaa ogaataa xisbigaas dadku u shaqeynayo ama dadku la shaqeynayo يولا شقين دونا وين أسوي ديسان تصالحان هذا كوسي وحالته إن أد مركز عديسيد نسكده إسبيد أما السنتر بارتية أرتنا عديسيد وين أوجدت السنتر بارتية حزبية إلا شقين السيا وايه ومهم تاينا أوجدتها ويو كل جودة ما معمول كلام أما ما هم ضد أما هم حزبي كل معمول كلام ولا شقين دونا حزبية كلا يا واي حزبية كلا ولا شقين هاي حزبية كلا ولا شقينا وحكميدا سوسياليستيسك ما يحكميدا أربعة البارتية يا كميدا يو سوسياليستيسك فنستر بارتي سد حدودا ويستشقي كلام هذا مرك ربان إن سمايا وحلوية قن روجن ريرين وإن سوشيال كا وقولدا أو بدحلا يو قولدا أو رمتي جرين كا أم وحيالها رمتي إن سير لوجه هرتجو رابط كحوج له عملاء وكله استبدل كودا ayaa loo yaqaan rogran ayaa loo yaqaan marka laakiin waa muhiim in ay helaan 85 xubnood iyo ka badan ama 85 xildhibaan ka badan waa in ay helaan haddii rabaan in ay kala wareegaan kuwa maanta runtii dalka maamula waa muhiim in aan ogaanaa marka inta xisbi oo ku tartamayso xildhibaannimada baarlamaanka Norway daawade ogsoonow in 9 xisbi ee runtii tartan ugu jiraan inay codkaaga helaan sagaalka xisbina aan raba in aan runtii kula wadaago magacyadooda 1 Arbeiderpartiet 2 Høyre 3 Fremskrittspartiet 4 Senterpartiet 5 Sosialistisk Venstreparti 6 Venstre 7 Kristelig Folkeparti 8 Miljöpartiet De Grønne 9 Rødt inta markaas la garanay waa muhiim marka in aan ogaanaa haddii tusaalahan adiga aad u codeysid hal xisbiga wuxuu ballan qaado 100% ma awoodo in uu fuliyo maadaama uu la shaqeyn doono xisbiyo kale marka taa waa in aad ku baraarugsanataa waxay la micno tahay marka in aad ogaataa qolooyinka xisbiyada kula shaqeynayo maxay u taagan yihiin iyagana waa muhiim markaas inaad ogaataa sida markaas
aanu ogaano waxyaalaha ay ballan qaadayaan in ay hirgeli karaan ama in ay hirgeli karin. taana waa runtii arrin aad iyo aad u muhiim ah markaad dooranaysid in aad ku dartaa researchiga ama markaa baarisid marka baarisid taa waa inaad ogaataa. sanadihii ugu dambeeyay dad dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa runtii ka soo muuqday siyaasadda Norway oo runtii ka sameeyay horumar badan. marka waa muhiim in ay isku dayaan dadka walaalaheena Soomaalida ah u tartamaya runtii in ay cod helaan inay si fiican ugu sharaxaan walaalahooda xisbiyada ka soo jeedaan programka u degsan 2021 ilaa 2025. waa muhiim xisbiyada marka inta badan hadda waa ognahay si oo kala baxaan, laakiin waa muhiim in ogaataa inay kala baxaan midig iyo bidix. waxaa laga wadaa marka kuwa hadda maanta xukuumana waa dhinaca midigta, kuwa raba maanta in kuwa hadda u tartamaya ama sida hadda uga jeedno cid aruurintii ugu dambeysay oo saadaalinta sida la saadaalinayo hadda dhinaca bidixda ama Venstre ayaa runtii loo jeedaa in ay runtii codkooda aad u badan yahay, cod badan ay heli doonaan. waa saadaalinta maanta oo ah bisha 10ka bisha 8aad 2021 sida uu ogsoonaatid. waxaa la saadaalinayaa in ay qoladan oo Venstre ah ama bidixda inay runtii markaas iyaga cod badan heli lahaayeen haddii maanta doorasho dhici lahayd. taana marka waa inaad sida ula socotid.